Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada cashirkeena xiga. Cashirkeenii hore waxaan kusoo baranay personal pronouns-ka. Cashirkan waxaan ku baranaynaa waxa loo yaqaano verb to be. Verb to be-ga asagana muxuu noqonayaa ayaan ku baranaynaa cashirkan. Okay. Verb to be-ga wuxuu noqonayaa waxaan cashirkii hore kusoo aragnay waxaa naga raba inaan ku barano am iyo is inaan ku barnaa naga rabay. Marka am iyo is-taas waxaa loo yaqaanaa verb to be. Verb to be-gu marka waa am, is, ama haddaan rabno kuma aan siino am, is iyo ry. Saddexdan ayaa waxaan isku dhahaynaa verb to be. Verb to be-gan markii aan personal pronoun aan soo barnay kadib asagana inaan barano waa inoo muhiim. Muxuu muhiim inoogu yahay? Markaan dhahayo aniga waxaan ahay, aniga waa soo barta I waay. Waxaan ahay maxaa ka dhigaya marka? Okay, waa kana marka I am. Aniga waxaan ahay. Markaan dhahayo you are, adiga waxaa tahay, you are. Adiga waxaa tahay. Markaan dhahayo annaga waxaan nahay, we are. Markaan dhahayo ayada waxay tahay, she is. Markaan dhahayo asaga wuxuu yahay, he is. Markaan dhahayo ayada amba asaga, it is. Waxay tahay amba wuxuu yahay, yani oo waxyaabaha aan nooleen iyo ashyaada iyo loo isticmaalay isoo ma dhihin. Okay. Markaan dhahayo ayaga waxay yihiin, they are. Markaan dhahayo idinka waxaa tihiin, waayo hore waxaan soo sheegnay you marna waa adiga oo hal qof ku hortaagan marna waa dad badan oo jamac ah. Waa dhayn idinka. Marka idinka waxaa tihiin markaan dhahayo maxaan leeyahay you are. Idinka waxaa tihiin. Marka is iyo am iyo artas lagu sheegayo iyo personal pronoun marka way isla shaqeeyaan waa muhiim. Maadaama personal pronoun aad soo xafiday kuwan inaa xafido waa kuu muhiim. Okay, maxaan kaloo sameynaynaa marka? Tusaalahan oo kaleeto markii aan rabno inaan ogaano sida u kala qaataan I kaligeed ayaa waxay qaadataa am. Qof kale lama wadaagto. Okay? She iyo he iyo it saddexdan okay hoos noo wada gee. I am, I kaligeed waxay qaadataa dhana am. She waxay qaadataa is. Kan he yaa ka rabna mar kale she qornay. Okay? He-na sidoo kale is ayay u qaataa. Idna is ayay qaadataa. Verb to be-ga sidaas ay u kala qaataan. Verb to be-ga iyo personal pronouns markaad isku dareyso, verb to be-ga iyo personal pronoun markaad isku dareyso sidaas ayay u kala qaataan. I waxay qaadanaysaa am. Kaligeed ayaa qaadato. She waxay qaadanaysaa is. He muxuu qaadanayaa is. It maxay qaadanaysaa is. Okay? I kaligeed waaye she he it mid kastoo kamid markaa aragta isaa ku buuxinaysaa. We markaa aragta maxaan gelinaynaa are. You are. Okay? We are. You are. They are. Okay, saddexdaana maxay qaataan? Are ay qaataan. Haddaan you mar kale iska soo celino oo idinka ahayd, haddaan you mar kale iska soo celino oo midii idinka ahayd aan soo celino, ayadana maxay qaadanaysaa? Sidoo kale are ay qaadanaysaa oo keliya. Sidoo kale are ayay qaadanaysaa. Marka I am, aniga waxaan ahay. She is, ayada waxay tahay. He is, asaga wuxuu yahay. It is, ayada waxay tahay ama asaga wuxuu yahay. Waayo xayawaanaadkii ashyaada iyo waxaan sheegnay inay lab iyo dhidig iyo ama naag inaysan kala lahayn. We are, annaga waxaan nahay. You are, adiga waxaa tahay. They are, ayaga waxay yihiin. You are, idinka waxaa tihiin. Markaan waa singular, adiga waxaa tahay. Markaan idinka waxaa tihiin. Marka verb to be-ga asagana waa muhiim, waa inay xafidaan. Verb to be-ga hadda present-iga aan baranaynana waa am, is iyo are. Oo ah am, is iyo are. Sida u kala qaataan waa baranay. Markaa dhis aniga waxaan nahay I am. Adiga waxaa tahay you are. Annaga waxaan nahay we are. Iyada waxay tahay she is. Asaga wuxuu yahay he is.
ayada ama asaga waxay tahay oo xayawaanaadka iyo ashyaadii loo isticmaalo it is ayaga waxay yihiin they are you are idinka waxaad tihiin markaa dhehayna waayo marka intan waxaa ku kala shaandheynay waxaan dhahnay I kaligeeda waxay qaadataa am she is ayay qaadataa he is it is yani markaad verb to be qorayso haddii I lagu qoro lagu baneeyo I sideedaba am ay qaadataa kaligeeda she isay qaadataa haddii verb to be ku buuxi lagu dhaho exercise ayaa keeni doonaa he is ayuu qaataa it is we are you are they are you are cashirkaana inaan isla fahanaa rajaynaa